kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah warar kala duwan oo ka soo baxaya xaaladda doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo musharaxiin aan la filayn inuu isku diiwaan geliyo tartanka madaxweynaha dalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha shacabkana waxa uu ka baxayba guddigii doorashada madaxweynaha haddaba sababtu maxay tahay iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan halkee marayaan xarig jiidka crash iyo dani ka dhaxeeya daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona fadlan haddana nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halka oo soo ugu reeba muuqaalkana si share gareeya laagtiina waa inuu muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xaaladda doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya musharaxiin aan la filayn waxay isku diiwaan geliyeen tartanka madaxweynaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee loogu jiro doorashada guud ee madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taas oo loo gali doono loolan culus guddiga isku dhafka ee labada aqal ee loo xil saaray doorashada ayaa wali wadaan diiwaan gelinta xubnaha musharaxiinta taas oo maanta gashay maalintii labaad oo xiriira shahaada siinta iyo isdiiwaan gelinta ayaa socod doonta ilaa 10 bishan aanu ku guda jirnay ee May waa sida uu qorshuhu yahay oo ku eg maalinta berita ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaan geliyay musharaxiintii ugu badnaa waxa ayna u badan yihiin xubnaha mucaaradka dagaalka kula jira Villa Soomaaliya dhankiisa madaxweyne Farmaajo ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay musharaxnimadiisa isagoo inay ka dalbadeen shacabka Farmaajo ayaana sidoo kale baaq u diray xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuuna ka codsaday inay codkooda siiyaan baaqa koowaad waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal waxaan ka codsanayaa inay codkooda siiyaan si aan wadajir ugu guuleysano oo u horumarino dalka iyo dadkeena una sii socodsiino isbedel doonkii soo bilowday Febraayo 2017 ayuuna ku yiri khudbadiisa waqtigaas madaxweyne Farmaajo talaabadan ayaana ku soo aadeysay xilli garabka Villa Soomaaliya ee dhawaan bilaabeen ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo iyagoona hal hees uga dhigay isbedel doonka socda dhinaca kalena musharaxiin aan la filaynin ayaa isku diiwaan geliyay tartanka madaxweynaha ee 2022 iyadoo wali ay socoto isdiiwaan gelinta musharaxiinta madaxweynaha ayaa waxaa soo baxaya inay isdiiwaan geliyeen musharaxiin aan la filaynin oo aan horay wax ololaha u sameynin qaarkoodna ay yihiin dhalinyaro iyo wadaado tirada ilaa iyo hadda isku diiwaan geliya doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee la siiyay shahaadada musharaxnimada ayaa ka badan 20 waxaana la filayaa inay sii socoto oo tiradoodu kororto markaanu eegno qaar kamid ah xubnaha isdiiwaan geliya ayaa waxa ay kala yihiin kow Sheekh Shariif Sheekh Axmed labo Daahir Maxamuud Geele saddex Xasan Cali Qeera afar Cabduqaadir Cusub Cali shan Bashiir Xaaji Cali Jamaal lix Cabdullaahi Cali Xasan toddoba Cabdinuur Sheekh Maxamed sideed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sagaal Cabdikariin Xuseen Guuleed toban Cabdiraxmaan Macalin Axmed Ablaal 11 Xasan Sheekh Maxamuud 12 Saciid Ciise Maxamuud 13 Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi 14 Axmed Ducaale Geele Xaaf 15 Mahad Axmed Diiriye 16 Mukhtaar Maxamed Ziyaad 17 Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi 18 Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan 19 Maxamuud Daahir Aweys 20 Ridwaan Xirsi Maxamed 21 Nucmaan Sheekh Cumar 22 Cumar Cabduqaadir Axmed 23 Cabduqaadir Xuseen Maxamed Jahween 24 Cabdi Aadan Hoosow iyo 25 Jamaal Axmed Ibraahim musharaxiinta la siiyay shahaadada musharaxnimada ayaa mid kasta bixiyay lacagta isdiiwaan gelinta oo gaaraysa $40,000 waxaana qaarkood ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay taariikhda u gasho musharaxnimada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 2022 ayaa lagu wadaa in teendhada Avizione ee xalan ee magaalada Muqdisho ka dhacdo 15 May ee 2022 geesta kalena xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka baxay guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya xildhibaankan ayaana sababta uga baxay guddiga faahfaahin badan laga bixin waxaana qoraal ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe loo diray guddiga doorashada waxaa lagu sheegay in xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Beere uu guddiga uga tagay arrimo shakhsi ah booska uu baneeyay xildhibaan Maxamed Beere ayuu Sheekh Aadan Madoobe u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka warqadan oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa ugu horreyn lagu yiri ujeedka bedelidda xubin kamid ah guddiga mudana gudoomiye waxaa si xushmad iyo qadarin leh kula socodsiinaya in xildhibaan kamid ah guddiga oo ka soo galay dhanka golaha shacabka oo ka baxay guddiga sabab shakhsi awgeed xildhibaankan ka baxay guddiga waa xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Beere waxaana bedelaya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh
warqadaas ayaana waxaa ku saxiixnaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. waagaga daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa halkee maraya xarig jiidka ka dhaxeeya Karaash iyo Dani. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo wareegto magacaabis iyo xilka qaadis iskugu jirta soo saaray dhowaan ayaa dhalisay khilaaf ballaaran oo hareeyay dowlad goboleedka Puntland xilli madaxweynaha maamulkaasi uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho isagoo u sharaxan xilka madaxweynaha Soomaaliya. 5 bishan May ayuu kusimaha madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyay 3 kamid ah golihiisa wasiirada maamulkaasi isagoo sidoo kalena 3 wasiir oo kale u magacaabay jagooyinkaasi balse ilaa iyo hadda lama oga dhaqangalka isbedelkaasi. madaxweyne Dani oo mar sheegay in maadaama uu ku sugan yahay gudaha Soomaaliya uu isagu wali gudanayo xilkiisa madaxweynimo ee Puntland ayaana ka hadlin isbedelka wasiirada ee uu Karaash sameeyay. wasiirada xilka laga qaaday waxaa kamid ah kan maaliyadda Xasan Shire Abgaal, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad iyo wasiirka amniga Cabdisamad Galan balse xilka qaadistaasi ma dhaqan gelin oo wali wasiiradu hooshooda ay wataan ilaa iyo haddana madaxtooyaduna arintaasi kama aysan hadlin. aragtiyada kala duwan ee khilaafkan la xiriira markaan u eegno qaar kamid ah nabadoonada iyo waxgaradka gobolka Mudug ayaa dhankooda ka soo horjeesteen xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku sameeyay wasiirada. qoraal ka soo baxay nabadoonadan ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu qaaday ee wax u dhimi karaan Puntland. cuqaashaasi waxaa kamid ah Suldaan Cabdinuur Faarax Xeede waxa uuna yiri mar uu ka hadlayay baaqa ay soo saareen baaqu waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland baan u soo jeedinay innaga oo ah nabadoono siyaasiyiin iyo dad waxgarad ah arrimaha uu ka wado Puntland inaysan ahayn wax wanaagsan nidaamka Puntland u dhigan iyo nidaamka loogu talagalay madaxweyne ku-xigeenka midna. dhankiisa gudoomiyaha ururka bulshada rayidka ee Puntland Faisal Axmed Warsame ayaana sheegay in wax la isku hayo uu yahay dastuurka oo qoloba dhankooda aaminsan yihiin inay iyagu saxan yihiin. wuxuu sheegay in iska qabsiga madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa aanan Puntland ku cusbeen oo horeba waxa isqabtay Allah uu naxariistay madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf iyo ku-xigeenkiisii Maxamed Cabdi Xaashi. Faisal wuxuu aaminsan yahay in khilaafka Dani iyo Karaash uu salka ku hayo is-sharaxaada Saciid Cabdullaahi Dani ee madaxtinimada Soomaaliya taas oo keentay inuu ka maqan yahay Puntland. haddaba markaanu eegno dhankan kale waa waanta socotana guddi ka kooban 12 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa magaalada Boosaaso kula kulmeen madaxweyne ku-xigeenka aana ku simaa madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash si ay xal uga gaaraan khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Dani. Maxamed Axmed Cabdi Xaraf oo kamid ah xubnaha xildhibaanada ee la kulmay madaxweyne ku-xigeenka ayaana sheegay inay u sheegeen Axmed Karaash in Puntland tahay baarlamaani isla markaasna arrimaha jira hoos loo dhameeyo uuna madaxweyne ku-xigeenku ku laabtay magaalada Garowe. wuxuuna sheegay Axmed in wali ay socdaan kulamada looga sii wada hadlayo arrimaha taagan. isaheentu waxay kulay ka timid shaqada socota khilaafyo salka ku haya dastuurka Puntland waa baarlamaani. guddiga iyaguna wuxuu ka yimid talada baarlamaanka ku yeeshay Garowe waxaana sheegayaa in arintu hadda ay aad u wanaagsan tahay ayuu sii raaciyay. haddaba waxaanu milicsanaynaa khilaaf hore u dhexmaray labadan mas-uul intii lagu guda jiray sanadkii 2020 waxaa soo shaacbaxay khilaaf soo shaacidiisa ka hor la hadalhayay inuu u dhaxeeyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. khilaafkooda ayaa salka ku hayay xilligaasi kala lahaanshiyaha awoodaha maamul ee labada mas-uul. Karaash ayaa ku eedeeyay waqtigaasi Dani inaanu kala tashan magacaabis uu sameeyay oo iskugu jirtay taliyaal ciidan iyo wasiiro. madaxweyne ku-xigeenka ayaana waqtigaasi sheegay in khilaafkooda uu gaaray heer aysan salaanta iska qaadin labadooda kuwaas oo ku wada shaqeeya dhismaha madaxtooyada Garowe. khilaafka labada nin ayaana baryahaasi banaanka yimid kadib markii 14 May uu madaxweyne ku-xigeenka ka soo horjeestay magacaabis la xiriirta taliyaha iyo taliye ku-xigeenka madaxtooyada Puntland oo uu sameeyay madaxweyne Dani. mudane Karaash ayaana sheegay inaana lagala tashan magacaabistaasi. waxaan qoonsaday magacaabista taliyaha madaxtooyadu waa meel naga dhaxeysa oo aan u wada shaqo tagno wada joogno
wada maamulno. Madaxweynuhu markuu wiilkiisa keensaday, wiilkii aan anigu keenana uu meeshii ka eriyay, marka dee meel la isku haleyn karaba ma ahan, ayuuna waqtigaasi yiri Karaash. Xafiiska madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo loo bandhigay eedeymaha loo soo jeediyay xilligaasi ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo. Dani Karaash ayaana ku guuleysteen doorashadii baarlamaaniga Puntland ee dhacday 8 Janawari sanadkii 2019. guud ahaan daawadayaal wanaagta war oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawada hadaan nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkana si share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawadayaal waana ku maasantiin daawashada la socodka warka janalka dalka TV Media.